بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. dhammaan axibada iyo ikhwada ahlu qur'aanka, xamalatul qur'aanka, dadka ahlu qur'aanka ah, muslimiinta iyo bahweynta guud ee nagala socota qanaadka khayr t v qaybihiisa kala duwan ee sideedda ah, alkhatma oo lirijaal ah iyo alkhatma oo lisayidaad ah, safiinatu alqur'aan iyo majmuucooyinka kale, markaz alhidaaya iyo majmuucooyinka tirada badan ee aanan soo koobi karin maanta u yimid in ay la joogaan dhegaystaan maca shaykhina almubaarak fadiilat ashaykh cabdirashiid sheekh cali suufi. ونحن بين يدي شهر رمضان شهر القرآن oo laga yaabo inay saacado yar inaga xigaan in sha allahu tabaaraka wa tacaala taxta barnaamij ama taxta cinwaan maca almahara. soo dhowaada walaalayaal meel kastoo aad joogtaan. sidoo kale waxaan salaamaynaa aniga oo labada sheekh wakiilka ah, fadiilat sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi iyo fadiilat ashaykh xasan alwaajidi iyo dhammaan culummada kale ee khadka ku jirtaba. dadka kale ee laga yaabo inay dib naga dhegaysan doonaan waxaan leenahay dhammaantiin soo dhowaada. run ahaantii alxamdulilah baan leenahay, alxamdulilah khayru lkalaami maa qalla wadalla. sheekhana sheekh cabdirashiid xilli dambey u tahay, waad la socotaan, duruusihiisuna ma yara, hadda duruus kale ayuu ka baxay. marka waxaan marka ugu horraysa ku soo dhowaynayaa fadiilat ashaykh sheekh xasan alwaajidi si uu bal inoogu raaxeeyo, inuu ina maqashiiyo aayaad min kitaab illaahi caza wajal oo aanu maanta in sha allahu fii maa'idatihi aynu marti isugu nahay dhammaanteen, mid wax soo dhowaynaya iyo mid la soo dhowaynayaba. sheekh xasan falyatafadal mashkuuran ma'juuran muwafaqan biidni illah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعمشان كسلام شيخي الشيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي. شيخي ومشان جورنتي إن واحد آخر الدواء حويا وحبضنا نكعذر ذات لكن وليجدي لي إن شاء الله تعالى وأسكب الله بإذن الله. تفضل شيخنا، تفضل حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. العفو. ما شاء الله. شيخ حسن waxaa kula hadlaya sheekha rud عليه. نعم. أكرمكم الله جزاكم الله خيرا. نعم شيخي آمر. أقول صوت الجميل ليش ما كملت؟ شيخ محولة أيوة مقلن. wuxuu ku yidhi صوت الجميل maxaa u kamid ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الله عليك. الله عليك جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم أكرمكم الله أعطاكم الله. إلهي waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala sida aad masaamicu nnaas iyo dhammaantayaba aad noogu raaxaysay inuu ilaahay dhagahaada ka ilaaliyo waxun oo dhan addunya aakharabana alla subxaanahu wa tacaala uu sacaado kugu nooleeyo. jazaakum allahu khayran. waxaan soo xusuustay fadiilat sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo hadda ka hor maruu nala hadlaya soo jeediyey maan kelmadoo dhanba ka dhigno kalaamu rabbilcaalamiin jala jalaaluhu. marka baaraka allahu fiikum dhammaan mutaabiciina alkiraam meel kastoo aad joogtaanba mar kale soo dhowaada. waa maca almahara maca fadiilati asheikh cabdirashiid sheekh cali suufi. ilaahay waxaan ka baryaynaa jala jalaaluhu inuu bisha ramadaanna gaadhsiiyo baqaaya shacbaanna bisha shacbaan inta ka dhimanna alla inuu noo barakeeyo. ayuha alaxibatu fillah waxaan idiin kala dhexbaxayaa dhammaantiin insha allahu sheekheenii aad sugayseen asheekh cabdirashiid sheekh cali suufi iyo kelmaddiisii ahayd xawla dadka ahlu qur'aanka ah dadka xufaadda ah dadka qur'aanka ku dadaali jiray dadka ahlu qur'aanka ahaa inay dadaalka sii labalaabaan fii shahri alqur'aan inay dadaalka sii labalaabaan xawla hadihi alkalima ayuu sheekhu in sha allahu tabaaraka wa tacaala nala wadaagi doonaa. falyatafadal fadiilatuhu ma'juuran. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد الله إليكم عليكم الذي السلام لا إله إلا هو، أحمده سبحانه وهو أهل الحمد، معتمدا عليه ومنتصرا به ومستعينا به جل جلاله عم نواله. وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة وأزكى السلام يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يجهر به أو كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. أخواني أخواتي بارك الله فيكم مركوري وإذن والسلام على عموم إخواننا وأخواتنا المسلمين meel kasta ay joogaan hadalkayga maqlaya ina daawanaya kulligiin waa idin wada salaamaya waxaan idinku tahniyadeynayaa tahniya xarra bixuluuli shahri ramadaan oo saacado ay naga xigaan baan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa inuu nooga dhigo bil barakaysan wayba barakaysan tahay ee na waafajiyo barakadeeda na siiyo ilaahay subxaanahu watacaala camal saalixa oo maqbuulna uuna wada waafajiyo. waxaan si gaara aan halkan uga salaamayaa oo mudan salaan khaasa mudan ikhwaani akhawaati almahara oo cinwaan looga dhigay maca almahara allah naga dhigo. maca almahara waxaa looga jeedaa oo laga soo qaatay xadiid nabiga calayhi الصلاة والسلام uu fadlu ahli الqur'aani uu ku tilmaamay. والحديث في الصحيح كما هو واضح قال النبي عليه الصلاة والسلام
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. marka waxaa la yidhi maca almahara maahirun bihi fajamcuhum mahara. maahirkana waxaa loo jeedaa kan saaxibu lqur'aana insha allahu xaafidka ah mutqin liaxkaamihi ayaa mahara ah. min almahara waa kuwa marka uu nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalama uu gaarsiiyey masaafa almalaa'ika. bashariyadii iyo bani aadamkii iyo dacfigii iyo qurunkii dhulka yaalay kor baa looga qaaday, waxaa la gaarsiiyey maca asafarati alkiraami albarara. asafara alkiraam albarara waa sifooyin ilaahay si gaara uu u huwiyey oo uu siiyey malaa'igta qur'aanka ku khaas leh, ugu khasisay. kullu malaa'ika maaha ee waa malaa'ig iyagu si gaara loogu dhiibay qur'aanka suxuftiisa. waa meeshuu rabbigan odhanayo kalaa inahaa tadkira faman shaa dakara fii suxufin mukarama marfuucatin mutahara biaydii safara kiraamin barara. aayadahaasi waxay soo degeen caqiba citaabi rabi alcaalamiina linabiyihi calayhi الsalaatu wassalaam. nabiga sala allahu alayhi wasalam canaan soo yargaadhay oo xag alla ka soo gaadhay. wallahu khaaliqu kuli shayin wamaaliku kuli shayin. ambiyaduna waa addoommadiisa weeye, maadaama addoommadiisa ay yihiinna falahu alxaqu jala jalaaluh. inkastoo annaga agteenna ay qadaashe iyo tahaaro iyo makaanan caliyan ay ka yihiin, ilahayna agtooda ay saa ka yihiin. walakin maadaama uu huwa rabuhum uu yahay jala jalaaluhu, bacd almaraat uu canaananayaa subxaanahu jala jalaaluhu. rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama meelo cidda ah fi kitaab illahi tawjiih yani nawc min alcanaan iyo waa ay ku timid sala allahu alayhi waalihi wasalam. isagaaba odhan jiray baa la yidhi markii dambe intuu ridihiisa ama go-iisa uu dhigo ayuu odhan jiray yaa man caatabanii fiihi rabbi, kaale halkan soo fadhiiso, kan rabbigay igu canaantayo halkan ii soo fadhiiso odhan jiro. si gaar ah ayuu u qadarin jirayna waa ninkii indhoolaha ahaa ee nebiga u yimid calayhi الsalaatu wassalaam ee yidhi callimnii mima callamaka allah. rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markaana biabi huwa wa ummii wuxuu ku mashquulsanaa rag uu islahaa raggani haddii ay islaamaan islaamka waxay u noqon doonaan acmide iyo tiirar xoog leh. xaggaasuu isagu ka fikirayey oo weli khawaasi dacfi albashariya ah. marka raggaasuu muwajah ku ahaa. markaasuu cabdullahi ibni ummi maktuum oo kafiif aha amaana uu xoogay ku yar celiyey, ilxaaq ku yar sameeyey. dabadeedna nebigu calayhi salaatu wassalaam ka yar jeedsaday. canaantaasaa marka ku timid cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa wamaa yudriika lacalahu yazakkaa aw yadakkaru fatanfacahu dikraa ama man istaghnaa. acmaa u yimid markaasuu ka yar jeedsaday oo wejigiisa u yar kaduuday. wamaa yudriika lacalahu yazakkaa, yani inuu isagu kani uu ku hagaagayo oo ku hanuunayo oo ku tahirmayo. aw yadakkaru fatanfacahu dikraa ama man istaghnaa, kan isagu iskibriyey ee deeqtoomaya yidhi waxba ka dooni maayo faanta lahu tasadda wamaa calayka anlaa yazakkaa. maxaa kaa galay haddayba abuunininba adig yaa ku haysta adiga. yani canaan noocaas. yahdi man yashaau wayudilu man yashaau fahuwa rabu alcaalamiin yucaatibu man yashaau min anbiyaa'ihi. nabiyadii hore waxaa arrintaasoo kale bacdu ahli اlcilmi ay tacliiq ka bixiyeen qowl اllahi tacaala fi qisati
المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم إن بدنوا إياه كاملة وإدمي وأي كيدا قاتين وإذا هين مقرنا يساوحان بيوتنا عورة لباتنا هيستا جهاتي متى كرو النبي صلى الله عليه وسلم وأدارتين وأسكروا ميشتوا marka xogay ilaahay su'aal baa meesha ka timid iyo yar canaan oo lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin lakin lima intuusan ilaahay oranin ayuu wuxuu ka hormariyay baa leeyahay afa allahu ank lima adinta lahum wuxuu rabbigan u yeelalay lima kaligeed haday ku iman lahayd lan shaqqa qalbu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam qalbigiisa baa dhib bilmilaha kala dilaaci lahaa aan musaad kaysteen wuxuu ka horreysiyay cafwigii cafa allahu canka waaba ilaahay waaba ku cafiyey lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin hadalku markuu isu naga sii baahine ikhwaani akhawaati asafara alkiraam albarara markaasuu ilaahay wuxuu marka caqib canaantaa kadib ayuu ilaahay wuxuu nebigu uu ku leeyahay suxuftan iyo kitaabkan iyo cadiimu alqur'aan iyo sharafkiisa nin iska kibriya waxba ha ku falin maxaa yeelay ilaahay baaba tahiray suxuf mutaharu ilaahay ka dhigay oo caaliho aad u sarreysa weliba wuxuu khaas uga yeelay inay xambaaraan oo ay wadaan kuwa ilaahay tahiray oo safara ka dhigay oo kiraam ilaahay ka dhigay oo barara sifooyinkaas uu ilaahay siiyey xaafid alqur'aani alcaamilu bihina kuwaasuu la mid noqonaya maca safarati alkiraam albarara fadli ka weyn oo lagu sheegi lahaa مجروا يا حافظ القرآن يا ماهرا بكتاب الله عز وجل هذه مصاف البشرية يرعونات كي انت لقاد القاضي لقو قارسيي مصاف الملائكة أي ملائكة ملائكة إلهي وشرفي ودرجة سيي أو صفة خاصة وماركتي كدور بذي ملائكتي كالودن بعد معودة هاي مالي رح يسلقن أيضا هذا القرآن كان أغريه ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به وحالي وحي إشارة إشاء أو أي تلمام إشاء إن إلهي سبحانه وتعالى في مقام الامتنان نبي هذا من أو كدل شيكتو أو كدل أخريو إلا نعم كيسة أو شيكتو كم من نيستوان وكم من نيسته نبيدي ولقد مننا على موسى وهارون وحا أوسي إله كشيكيا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة marka nabiyadii nabi walbaba waxaasaanu ku siinay wataasaanu kugu nicmaynay markuu ilaahay ciise la hadlayay وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك maxaan kuu sameeyey إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير إلى آخر الآيات وعد المنن marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahi wuxuu ku yidhi walaqad aataynaaka 7 min almathani 7 aayadihii soo noqonay waa suuratu alfaatixa iyo walqur'aan alcadiim baanu ku siinay mar haddii arrintu saa tahay laa tamuddanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi azwaajan minhum walaa taxzan calayhim waqfid janaaxaka lilmu'miniin meeshaasaaba alla ku gaarsiiyey oo nicmadaas weyn baaba alla ku siiyey ma waxaad dib u jalleecaysaa waxaa kan xutaamka ahee faaniga ahee aanu adduunka ugu yar raaxaynayno mataaca qaliilka ah miyaa dib u jallecaysaa maya dib ha u fiirin waad ka weyn tahay maqaamka ilaahay ku siiyey haakada yukhaatabu kullu xaamili kitaab illaahi caza wajalla ilaahay uu kitaabkiisa uu siiyey in uusan dib u jalleecin xutaam faani ahoo wax alla wuxuu yahay aan jirin ayuha almaharatu bikitaab illaahi abshiruu bilkhayri khayr badan ku bishaaraysta أقبل عليكم شهر القرآن قرآن كبشيسي با إلهي إذن قارسيي وعمري إني إلهي سبحانه وتعالى سو قارسيي مركا هرتب الخير بدن كب بشاريستا خير بدن كب بشاريستو وحا إلهي وإنسيي وحدة قرنا الله سمي معها الله رب العالمين ملك الملوك ذو الجلال والإكرام خير الدنيا آخرة بكيك عن جيسي كجرتيوي
maqaaliidu samaawaati walardi kii gacantiisa ku hayay wey. ilaahay ma uusan simin dadka, ma uusan simin xataa nebiyada, walaqad fadalnaa bacdahum calaa bacd. mu'miniinta sidoo kale ilaahay ma wada simin oo mu'miniinta qaarkeed qaarka kale waa ka fadilay. laakiin yani xaamilu kitaabihi almaahiru bihi, ilaahay dadka lama simin, allah dadka ka wada fadilay. qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wassalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah. khayru lbariyati waa muslimiinta mu'miniinta, khayri lbariyatina waa man tacallama alqur'aana wacallamahu. faabshiruu bilkhayri marka hore. marka labaad maxaa lanaga doonayaa? waxa weeye majmuucaadka, khaasatan waxaan si gaara ula hadlayaa majmuucaat alkhatamaat. majmuuc aan ku jiro baa jira oo qaarna wiilasha ah qaarna gabdhaha ah, oo khayr allah siiye usbuucii baa qur'aanka la dhameeya. waxaan hortiina ka ictiraafaya oo aan idiin qiraya, aniga shakhsiyan dadku igu tilmaamay inaan qur'aanka calaaqa la leeyahay. gruubkaas ama majmuucadaas wax badan baan ka faa'iidaystay, anaa ka faa'iidaystay oo see baan uga faa'iidaystay. oo markii hore qur'aanka soomaan akhri jiray, waa akhri jiray, alxamdulillah qur'aanka waa la akhri jiray. laga yaabaa inaan maaragtay usbuucaas aan is oran jiray ku dhammeyn, laakiin markii aad ku saarnayn, oon lagu daba taagnayn, oon lagu su'aalaynin, marmarka qaarka waas dhiganaysaa. laga yaabaa inay khamiistii ku dhaafto oo tidhaahd jumcadaad furso heli doontaa, galabtaa jumcadaad iska akhriyi doontaa. mar haddaad waktigaas soo gaadhanoo dhowr juz isku soo gaadhaanna, laga yaabaa inaad tidhaahd bal insha allahu sabtidaan akhriyi doonaa. haddiiba aad seeta dheeraseetana laga yaabaa in usbuucaasi uu wardigaagii ku dhaafo oo tidhaahd usbuuca kalaan dadaalaya. naftuna sideedaba annafsu albashariya dacfi iyo waxaa la socdaa had iyo goor iyo khatii'a iyo dembi. khayru nufuusi, naftan ugu khayr badan soo naftii nebi moxamed maaha sala allahu alayh wasalam. muxuu ku tilmaamay naftiisa markuu tilmaamay rabbi inaka in takilnii ilaa nafsii, haddaad aniga naftayda ii wakaalato, takilnii waxaad ii wakaalanaysaa ood ii tala saaraysaa ilaa dacfin wa cawratin wa dembin wa khatii'a buu yiri nabigu alayh salaatu wasalaam. rabbigi buu u sheeganaya, wuxuu leeyahay aniga naftaydu haddaad ii wakaalato, waxaad ii wakaalatay ood ii tala saaraysay waa dacfi, waa taagdarro iyo khatii'a iyo dembi iyo cawra, intaba baad marka wa inii anigu laa athiqu ila biraxmati, raxmadaada ma ogi waxaan kaloo ku kalsoonahay ma jiro. marka annufuus albashariya dacfigaasa had iyo goor la socda. sidaa darteed baa tacaawun cala albiri waataqwa ay ilaahay uu noo jireeyey inaanu isu kaalmaysano oo oonu isku taxriibino. hadda wasaa'ishan marka iyo qalabkan iyo waxyaalahan ilaahay dadka uu u fududeeyey, qaybtan hadda aan ka hadlayno oo idinla hadlayo oo kaleeta ay ka mid tahay inaan uga faa'iidaysano khayrka. marka qolooyinkaas khayr allaha siiyo ee iskugu jira wiilasha iyo gabdhaha ee samaystay majmuuc qur'aanka bis usbuucii la khatimayo oo yowm alkhamiis lasoo wada xaraynayo, qof walba khadmadiisa uu sheeganayo. wax weyn bay sameeyeen oo aad iyo aad u weyn, oo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa fadli weyn iyo khayr badan bay ka heleen. yani in badan ani intaan arkay iyo inta ii sheegtay iyo inta walaalaheen qaar badan oo halkan ila jooga iyo qaar badan oo adduunka darafyadiisa kala jooga, kulli waxa ay noo wada qirayaan in majmuucadaas ama gruubka ka hor qur'aankooda uusan thaabit ahayn oo margalab iska ahaa, oo laga yaaba bishaan inuu akhriyo bisha kale uusan akhrin. laakiin maadaama laysa sugayo oo digniinna dusha layska saarayo oo meesha waa lagaa saaraya, ogow haddii aad usbuucan keeni weydo digniin usbuuca ku xigtana waa iska baxaysaa layidhaah. yani marka waa noo fikireen walaalahan khayr allah siiyo, aniga iyo khaasatan walaalkii sheekha xasan waajidi ahaa iyo waxaa lana siiyey lambaradii ugu sarsareeyey. aniga lambar 1 baa la siiyey, waajidi armuu lambar 2 ama 3 yahay, meelahaas baasna la siiyey. waxaa iska ilaaliya haddii aad maaragtay idinkoo lambar 1 ah aad wardiga keeni weydaan, haddii markaa waxa weeye waxba meesha ka dhacaya. aniga shakhsiga oo ka faa'iidaystay, ilaahay khayr ha siiyo. aquuna sheekh cabdallah alxambalin si gaaraan u mahadinaya, baraka allahu fiihi, iyo gabdhaha yani hormoodka ka iyo gruubka kale wanaagsane safiinatu lqur'aan loo bixiyey, iyagana maaragtay aad iyo aad dadaalka ka horna soo waday, haddana sidii u wada ku
kulligood aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa uguna mahadinaynaa kadalika wiilasha khayr allah siiye jooga بريطانيا iyo yani doctor cali iyo khuna cabdishakuur iyo mashaayikhdaas iyo maaragtay aad iyo aad uga sheekhuna faarax iyo raggii iyagoo in yara ii yimid oo yiri waxaan doonaynaa inaad maaragtay aad nagu tashjiiciso groupkaas aad nagala soo gasho oo qayb gasho kulley quraanka waa wada akhridaye maasha allah aad iyo aad baanu hadiyo goor ugu ducaynaa aad iyo aad baanu ugu mahadinaynaa waxaan rabaa marka kaliya inaan dhowr qodob oo ramadaanka lanaga doonayo waa midda koowaad in aan ziyaadino maahinaya aanan ka naaqusinin aanan ka gaabinin yaan marmarka qaarkii shaydaanku camal khayr uu kusoo dhuuntaa isagoo doonaya camal wanaagsan inuu kaa horjoogsado waxaa laga yaabaaba inuu ku yidhaaho qiyaam baad habeenkii oo dhan tukanaysahay wardigan aad wado maalintii waad ku daciifaysaa iska da ha ka yeelin wardiganna usbuuciga ah sidaa ha kugu socdo ha kala goynin kaana alwaalid raxmatullahi calayhi aabahay wuxuu ahaa raxmatullahi calayhi waxaa sida uu xadiidku sheegay kaana camaluhu diima daa'im buu ahaa ma kala go'i jirin yani qur'aanka la aqriyo bacda almaghrib juz baa la aqri jiray bacda alfajrina juz baa la aqri jiray tasawaruu juzka isaga ah kala go' ma lahayn safar horta ma jirin lamaba safri jirin jimca ma la joojinayo xataa ciidda lama joojinayo yowm alciid anaguna waa iska yarayn fasaxaan iska jecjeclaan jir inaan iska yar meelaha soo ciyaarno xataa lanagama yeeli jir ramadaankaa soo galay ramadaankii muxuu samaynaya alwaalid raxmatullahi caleyh ma la joojinaa maya juzkii la akhriyi jiray bayna almaghrib waalcishaa bacda taraawix baa la akhrinaya bacda taraawix oo goorma dee waqti dambe baa laga bixi jiray taraawixda lianna الوالد رحمة الله عليه جزء كنت كان جري برواية الدوري عن أبي عمرو بكو أخري جري وليس ما بوش جوجين جزء كاسو أخري جري جزء كي تراويح ده والله ما تنرك عالة كان أي وحاكه الرئية تراويح ده جزء بالا أخري جري أو كان وكنت كان يو بالا سي أخري جري وإنت عشاء بلا جري عشاء مركز لقى بحنا يتراويح ده لقى بحنا جزء كي هري وسعون جري أيانا أغرنا يا وأن لك لجوجين مركز وان حسوستا حتى saaq dhexe oo waqtiga 11 la yiraahdo habeenimo ama 12 marka la gaaro ama 6 saac xamar looga yaqiinay baan marmarka qaarkii aan ku gaari jirnay yani juzkaas la akhrinayo laana juz ila iska akhrinayo ma tajwiidka lagu soo jiray qiraa'aadka lagu soo jiray murtaas oo dhan baa ku soo jiray macnaha waxaan ka wadaa lama oran war ramadaankii baa la galay hal joojimay ma lama yeelay laana waa qur'aan shahrul qur'aani ma qur'aanka la joojinayo maya marka waa in aan ku dadaalno oo subcii iyo la akhriyi jiray usbuuciga ahaa la dhammayn jiray haddaad ziyaadiso waa khayr oo ka yar 3 beri aad ku dhammayso 4 cisho aad ku dhammayso waa hagaagsan tahay adiga waxaa laga rabaa inaad soo gudbiso inaad usbuucii mar dhammaysid haddaad ka badan aad akhrido fadaka fadlu wa ziyaada waana sida laga rabo waxaan kaloo aad iyo aad aan walaalaha ugu waaninayaa wiilasha iyo gabdhahaba يعني صاحب القرآن ولي بشهر رمضان يمد وأن قيام لهين وأرن أن كو قلبين وي مركو أن القيام ولي بأد نفت هذا كل لبتو أو أد كل لبتو ومعنى وحن كوذا أدى شو بلغات دونية جزء هرتا إساقا كاس ومع عوام الناس بلا الله لكن وإن آديها لتا مثلا طبنك عشاء مرة ما tobanka horeba ka bilow tobanka dambe dadaalka waa la kordhiyaa laakiin iyada ha isku halaynin tobanka horeba ka bilow oo 3 juz habeenkii isaga tuko haddaad jamaaca ku kaalmayso oo 3 juz aad kula tukato aad heshana fabiha wa nicma haddii aad weydana kaligaa iska istaag anigu beri waxaan yeeli jiray alxamdulilah saasaan u tukan jiray waxaan yeeli jiray masaajidka markaan halkan kow qadar aan imid bay ahayd oo aan maaragtay aan dadkuna ayna aad i aqoonin oo aan la weyman jirin marka taraawiixda markaan dhameeyo oo qiyaamka la gaaro waxaan qiyaamka markaa juz meelahaas nooga badanin bay oran jireen waa barihii hore kadib insha allah ilaahay waa noo fududeeyo waa iska marka hal juz marka ama 2 juz marka aniga u aqriyo juzkii kale meelahaas ku dhamaysan jiray kaliya marka saas iyada oo ku dadaala waliba inaad 3 juz
aad ku tukato oo aad naftaada ku dhibto oo aadan ka yeelin waa bishaa keliya 11 bilood baad ciyaaraysa oo aad meelaha ku dhudhuumanaysa oo habeenkaaga iyo maalintaada aad maaragtay waxyaalo kale ku mashquulsanayd hashaa bil maad yani si ikhlaasa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu raalli ka yahay oo aad isu ekaysiinayso dadkii saalixiinta ahaa ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii siday ahaayeen sayidina cali radiallahu canhu baa subax salaadii markuu tukaday kama rawaahu axadu taabiciin oo araaka la yidhaha wuxuu yidhi lama infatala can yamiinihi dadkii buu fiiriyey salaadii subax la tukaday saasuu u fiiriyey wuxuu yidhi laqad ra'aytu asxaaba muxamadin sala allahu alayhi wasalama baan arkay oon soo gaaray buu yidhi soo arki jirayo famaa ara alyawma shay-an yushbihum wax u eg maanta ma arko dadkuu ka hadlay waa taabiciintii waa khayru lquruuni qarni uma aladiina yaluunahum kuwa nabiga yeli waayo waa taabiciintii wax ragga u leeyahay wax asxaabtii nabiga u eg ima muuqdaan maanta markaasuu ka sheekay wuxuu yidhi kaanuu saxaabadu waxay ahayn yusbixuuna lilahi shucthan gubran sufran bayna acyunihim kaamhaali rukabi lmicza waxay waabaraysan jireen oo ay subaxii soo waabaraysan jireen iyagoo basaasan oo booraysan oo yani jirkoodii sida qofku markuu mashaqo iyo dhibaato badan iyo uu galo uu dhiigu intuu uga tago wejigiisu uu jallo oo kala noqdo sidaasoo kale ay kusoo bixi jireen bimacnaa waa dadaalkii ay habeenkii oo dhan ay ku jireen waay shataana baynahuma in soo waabaraystay isagoo maaragtay mucadar oo daamamkiisu hurdadu ay ka buurbuuran tahay oo garanaysaa cadar iyo barafuun iyo raggaani waxay soo waabaraysan jireen buu yidhi shucthan sufran wabran bayna acyunihim kaamhaali rukabi lmicza yani labadooda indhood dhexdooda halkaa wejigaa waxaa ka saarnayd siday jilbaha qolfoofka ariga jilbihiisoo kale ayaa sujuuddii badnayd ay dhulka ku hayeen halkaa kasoo baxday buu yidhi yuraawixuuna yabiituuna lilahi maxay samaynayaan habeenkooda maxay ku dhamaysanayaan sujadan wa qiyaam iyo saajidiin waa ilaahay ku tilmaamay taraahum rukacan sujadan qur'aanka ilahay ku sheegaya muxamadun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min rabbihim waridwaana suurat lfurqaan ilahi muxuu yidhi waladiina yabiituuna lirabbihim سجدا وقياما يعني الإمام علي محمد رضي الله عنه كانوا يبيتون لله سجدا وقياما يراوحون بين أقدامهم وجباههم حال مراوحة وجدا يعني حكوذا لغوه مركي أي دالان تاغنيدي أي تاغنايين لغوه أو أي قمدوه أي دالان راح هذا إيه ماشي يكون راح سنة يعني كنا سنة يعني ووجه بوري وسجودي سجود مركي أي وجه انت عنتو أو ماركتي كرنا فاضانا جلبه لوهي بيكون سنيان مراوحة بين الأقدام والجباه فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم لا إله إلا الله يوه بينك يورنا سيداس قيام وجري فوقتي سحر كمرت اللقارو أو أيوة بريستانا أو هنتي استغفارت إيه ندمكي كأنهم إني معصيها بينك يا سودون كسو جيدين اللي انتي كاتم الآيات دركو إذا قوينيش وأنت يا صاحب القرآن ولم أوهن درك أقول لقي هذا هو السؤال وهذا أردت أذن هلين يعني سيرت أنا أقول صفة تقول هذا أسمرك اللي أنت إنه هذا كتمت أي درك هذا قوين يسوي مركز وأنتوا ساعوا جل جماعة دي لا تكتي تابعين تقبضني أيوه حلو والله يبقى نقول أرتي لكأن القوم باتوا غافلين يعني وحي وبريستيني وغافلين كما موقضه وحي كم موقضي رقي أنا أقيني سيدنا علي بن رضي الله عنه وأرضاه قرآن كان إلهي وأنه وصفه قرآن كإلهي سبحانه وتعالى إن برمبوك عديي إن قيام الليل على العموم رمضان كيف ما قيام الليل إنه يهيداء بالصالحين أو ضدك والمراك سنة هي صفات كودا إن برمب إلهي كعديي تتجافى جنوبهم عن المضاجع محال قوضا فراشكي أي كجيفين بل أدقى إيو فراشكي أد كجيفتي جفوة لحدي إنه يدعضو سيدي أدو عقضح كجيفو كلا إي نقطو أما أدو هردم عان أو ميل ما قرنا يساد دكسور جيفا روب انتو سود أو سيل إيو بيا
daad ah ku hoos mara bal ka waran jafwadaa kaa adiga iyo jambigaaga dhexdiina dhacaysa ayay ahaan jireen habeen kaste oo say u jiifaan hurdo macniyoo ku jira baa dee qalbigooda waxa ku jira iyo aakhirada xusuus ay xusuusan yihiin iyo ilaahay inay hortegayaan baa keenaysa inay ka boodaan firaashkooda oo ay maaragtay jafaa baynahum wa bayna alfiraashi dabadeedna ay ilaahay hortiisa ay istaagaan marka inaan bishaa ilaahay isu ekaysiino dadkaa wanaagsan rabbigeenna u dhowaano lacalahu casaa ilaahay inuuna daymoodo oo dayman raxmadba oo dabadeedna caadaba nooga dhigo oo aan had iyo goor aan ku soconno oo sanadkii oo dhan uuna siiyey khayrkaas baa laga yaabaa walaakin waxaa lagaa doonayaa in aad la timaadid naftaada shay'un min aljiddi walijtihaadi ciyaartana meel iska dhig wallahi ma xuma xataa haddaad alaabtan iyo qalabkan iyo facebook iyo whatsapp iyo waxyaalaha kan la mashquulinaya haddaad inaad ramadaanka meel iska dhigto oo aad iska dayso waa arrin wanaagsan wey waxaan daruuro ahayn oo dhan iska dhaaf u jeedso kitaabka ilaahay khatamaad fara badan aqri qiyaamu leylkaas ku tuko qiyaamkaas wardi gaar ha ku noqdo wardigaagii gaarka ahayd akhrisanaysayna ha socdo tii kale ee aad majmuucada kula jirtayna wado isagana wad kaa isagu waa daruuri waa asaasiyaadka wey la gaabin maayo insha allah waa la wadaya marka taana aynu ku dadaalno siyaamkeenana aynu ilaalina insha allahu tacaala tawfiiqdana allah na waafajiyo hadalka waa ku dheeraadaan u malaynayaa walaakin liannakum khawaas baa tihiin dadka cawaamta ah oo kale oo caamatu nnaasa ma tihiin dad khaasaa tihiin maca almahara sidaas baan si gaar ahaan hadalkayga aan ugu dheeraaday marka aynu dadaalna insha allahu tacaala tawfiiqdana allah na waafajiyo as'alu allaha tabaaraka wa tacaala an yajcalana وإياكم من عباد الله الصالحين القائمين الذاكرين الله كثيرا الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار إنه ولي ذلك والقادر عليه فما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن تلاوة القرآن على ألسنتنا وأن يجعل حفظه وفهمه وفقهه في أفئدتنا وأن يجعل العمل به على جوارحنا وأن يجعلنا من عباده الله الصالحين القائمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلهي سبحانه وتعالى كلمة داسية كأبا المريو رفعة الدرجات الله كقصيو أننا الله نقو أنفعو الله نبركيو انت كدب فضيلة الشيخ وأن أوغاهي إن أي كوتا هاي حل الدنبه لكن ولا لها قاربة سؤال بدن بيسوق بيين لكن إن شاء الله سؤالها سوحان كدورنا دور سؤالات بعد إذنكم. تفضل شيخ تفضل ما في مشكلة إن شاء الله. حياكم الله جزاكم الله خير. قراضة ننكم إذا وحقف ما قبرنا وينقون كرتا وحي الله دهي ودعاء إن شاء الله بدو دريساية توجيهات كإلمه أيام قرآن كوكر الله هاي سائلتك لوحة الله دهي قراءاتك إن لبرتو موحى شرطي إنه قفك قرآن كحفظ السنة هاي مسا يساقون حفظ السنين أيو قراءاتك برنكرا سائلك لوحة أولي هاي markii quraanka la rabo in dhowr khatamaad la akhriyo axkaamta quraanka ma la khafiifin karaa sida muduuda iyo qunayaasha iyo axkaamtaasi ma la khafiifin karaa falyatafaddal fadiilat sheekh تمام وأسئلة وناكشن وي marka hore insha Allah gabadha oo caruurta tiri insha Allah waa ducaynayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala caruurta qulubtooda Allah quraanka u soo jeediyo باذن الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني لو سؤال بعد دبا دغتay hadii aan ku hormaro qiraa'aadka نعم القراءات waa laba nooc qofka doonaya inuu jamc القراءات uu sameeyo qiraa'aadka oo dhan uu koobo hada la budda min asasiyatihi wa inuu xaafiظ القرآن uu yahay laakiin qofkii doonaya macluumaad inuu ka qaato ama riwaaya ama riwaayateen uu ma aragtay uu itqaaniyo la baasa hadii uu san hatta xaafid ahayn riwaayadaas hal riwaaya laba riwaaya uu iska baran karaa axkaamteeda laakiin ninka doonaya inuu quraanka uu qiraa'aadka uu jamciyo waa min al-asasiyaati inuu xaafid uu yahay su'aasha kale ee ku saabsan axkaamta ma la takhfiifinaya
أحكامتك كأحكام التجويد تخفيف ماله، لكن وهن ربائنا أن تلمامو طريقة القرآن كالله أقريو سيدا أئمة إنه مثل قراءة أي شيئين وصدح نوع. قيب وحالي لها التحقيق، قيب نوع لها التدوير، قيب نوع لها يعني الحدر. صدح ذاس قيبود بي وكلا قيبيين. التحقيق وقراءة مفصل كا دادير مدود كويهي أقصى درجات 6 حركات أو كله قفك أو 6 حقيقة وأقرنيو وحالو ترمى قراءات كان علماء قاركود أي كصوديان مساردي أو بدن أما رجعني هوري أما مشايخي هوري أي أخري جرين مركز قراءة حمزة لا أقرنيو، قراءة ورش لا أقرنيو كله مدود كانوا داديريهين. الزمن المد وزمن الغنى ويكدر تايتان كله تصال أهم بان فهمي كرا هدان أخرية مثلا سورة إنا أعطينا بالتحقيق وعن أرانيا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مثلا أنا ورشاقني وكالته ويكد وانتهي مركان حدر أغرني حدرية وقراءة سريعة ومد كيدنا وقابني هي مدة زمن المدود والغنن وكيري هي مثلا سيدنا أنا أخريه وكالته بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كلاهما صحيح، لكن كان مدة ذا كوبا حدري بالليلة أئمتنا وحي كدجين قسم من أقسام القراءة الصحيحة. محا مركا لو شردنا يا هدري مركا الآخرين يو حدري مركا الآخرين يو وحالو شردنا يا إن أساس الأحكام لقيتين مثلا المد الواجب المتصل وكله ومتفق عليه ما قابين كرتي مورن كرتي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت ما دهيجت وإنها ما كان مدها إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. غنى كينا والله ما ليس، لكن ليس كمدة التحقيق. تدوير كان وقيب قد حيث لوضع قيبوت أو إسكا دحد حاذا ويان أو سيدان وكاليت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وحن أمالينا يا وحن أغير دير هذه لأن سؤال شاس ويسون نغطا مركا خاصة ولدي بدل مركا القرآن كأخرينيسو وحد إلى لنيسا أحكام أساسيات كمدود كغننك واسك إلى لنيسا كما تجيشيد لكن بطريقة سريعة إن شاء الله. والله تعالى أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. waxaa jira dad fara badan oo su'aalo soo qoray. su'aalahaasi waxaa laga yaabaa inaysan sheekha toos u khusaynin, idaaraadkii uu sheegay iyo majmuucaadkii bay khuseeyaan, laakiin lacalla in ay ka wadaan in uu sheekhu u hadlo dad fara badan oo quraa ah oo inay majmuucaadkaas ku biiraan baa raba ayaa jira. laakiin majmuucaadkii ama way buuxsameen ama majmuucaadka qaar lama ogola 100 qof ka badan oo kale xuduudii loogu talagalay. marka dad fara badan waxay rabaan ama ay soo qorayaan in sheekhu uu noola hadlo howlwadeennadaas ama alqaa'imiina cala nidaam almajmuucaat in ay ama majmuucaadka noo badiyaan ama tacaawunka cala alkhayri walbiri oo saas oo kale oo kale uu noqdo tacaawun noocan ma muntashira, maadaama hadda wasaa'ishii martalan ay noqdeen dadka iyagoo meelo kale fofog jooga qur-aanka ay ku subcin karaan oo ay isugu kaalmaysan karaan. marka fama tawjiihukum fadiilat sheikh dadkaasi talabaadkooda. تمام. وأذاب الشيخيبة إذا كان إذن وجهنا أنتم المدراء أنتم الشيخ عبد الله أخواتك كل يوم كل الدلالة
إخوتنا في أوروبا، دكتور علي ودكتور أخونا الشيخ عبد الشكور الشيخ فارح رجعسان وجهنا لنا هي خير كبضية، دام خير كوبتي خير كإنه بضية إن شاء الله تعالى. دي إن جروب كاس أما جماعة ذا أي متسع تهينا يسقى على سي واسعيه دي كلنا كوكلا هلا سميه نقول أن فرع كنا قلنا كمشرفين وكموجودين إن شاء الله تعالى وخير كإنه شيء بدنيا وناك فرق بدن بينك لنا مركا إذا كان حقنا كسور يجي أرتها إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، حياكم الله. waxaan ku dari lahaa oo keliya aniga dadka faniyiinta ama muhandisiinta inay u fakaraan sidii kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu adeegi lahaa. matalan in la sameeyo aabab aanba u baahnayn idaaro kale iyo wax noocaas oo kale ah oo qofkii uu xubin ka noqonayo kadibna howlahaasi si otomaatig oo tilqaa'i ah ay u soconayaan. dad fara badan oo ku jecel baa waxay ku leeyihiin kitaabka alle ama suwarka qur'aanka suuradeed ugu jeceshahay. allahu akbar, ma sha allah. suurada aniga ugu jeclahay miya? wallahi يعني قرآنك وعجيب يعني كل سورة تحببك إلى الأخرى يعني تنكلك سيجع ليسين ليس، لكن دائما سورك إلهي وصفوين كيسا وكغشي كينيو نعم كيسا وكغشي كينيو عظمة إلهي تصينيا لأن سورة ذا قاركون وصور أحكام إيو ماركت إيو كجرتو سيدة سورة المائدة وكالي معظم سورة البقرة وكالي صورنا وصور إلهي وكشي كينيو صفات كيسا وكشي كينيو عظمة كيسا وكشي كينيو صور كاسان مركان آدوسي جعلها ومفصل كأهو سيدا سورة غافر والزمر والفصلات والشورى سورة النحل وكله الله أكبر سورة الرعد وكله يعني لما كلا دور بذكر كل سورة تعطيك وحي كسينيسا روضة غناء من الحدائق الجميلة هذا سلاله تنمو تكلا مجرته بعدين تكلا أوسي كد بيسا وهكذا. وهذا وحي كم التهي من حلاوة كتاب الله إله نقدر وقوة قرآن كإلهي كولا مع سيد الله نقدر وكل جانب ما شاء الله جزاهم الله خير. أكرمكم الله شيخنا. علماء النهر waxay dhihi jireen dad macallimiintii hore suurada waxaa jira adag oo ama xagga tashaabuh ha noqdo ama xagga xifdiga ama alfaada oo qofka cajamiga ku adag ha noqoto. مثلا waxaa la sheegi karay suuratu Muhammad oo kale qofka markuu wax xifdinayo inay adag tahay. suuratu An'am oo kale inay adag tahay. tashaabuh markii la yiraahdo suurad maaragtay Yunus oo kale inay tashaabuheedu u badan yahay. صحيح marka xagga xifdiga suuradee kula adag quraanka suuradee ugu adag miya? والله سورة marka quraanka xifdinayna ficlan inta aad tilmaantay خاصة سورة يونس سورة الأعراف تشابه بدن با كدحية. وأنا سألت الوالد رحمة الله عليه سورة الأعراف مركي أن مري أما مربا ويدي يعني سورة بالعكس هي ذا يفضل من أسهل السور لي، لكن وحورنجري الأصل فيها تكرار كثرة التكرار مركا بديسو كل جود حيكون نغنيان سهل بين نغنيان إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. gabarna quraanka xifdisa doonaysa ayaa waxay leedahay aayaadka mutashaabih ah misxafka ma calaamadayn karaa oo calaamada ma u yeeli karaa misxafka aniga khaaska ii ah? musxafka khaaska ku ah waxaad rabta ka samee oo yani lil ikraam wal ihtiram oo aan xurmadiisa aan wax u dhimayn, laakiin inaad calaamad ku samayso mashaayikhdeena waa yeeli jireen khaasatan markay masaaridaas iyo mashaayikhdeena marka qofka uu qunanka iyo muduudka iyo ay dib ku tahay qalin rasaas soo qaado oran jiray meel kasta oo qunaa hoosteeda xariiq halkana xariiq de mushaf khaas ku ah waad ku samayn kartaa, laakiin ma aha masxafta caamka ma aha. wallahu a'lam. أحسن الله إليكم. gabar baa si gooni ah ila soo xiriiday quraanka aad baan u jeclaabay tiri fahmadeeduna way adag tahay inaan xifdiyana waan rabaa. waxaan sheekh ka codsanayaa bay tiri ducaa khaas ah inuu ilaahay ii bariyo inuu igu kaalmo inuu ilaahay karsiiyo inaan quraanka xifdiyo. walacala nucammim ila jamiic almuslimiin ila kulli man araada xifda kitaab illaahi oo annaga aan ku jirno
inaad noo ducayso sheekhii baaraka allahu إن شاء fiikum. الله إن شاء الله إلهي قبل ولا شيء دمان تود أنت دوني قرآنك جعل قرآن كان جعله مر هديت إن شاء الله هب شارجته إلهي وصينا يعني وصينتنا إن شاء الله وأن إلهي بأن برينا الله أفضل ذي الله أفضل ذي الله أفضل ذي سهل الله لهم حفظ كتابه إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا أكرمكم الله. أنت أسكبدا سي ديبي ماينو جزاكم الله خير. في أول سورة الغافر قراءة مرتلة في أول سورة الغافر إن شاء الله آياتها قارهان بلوغة سورة الغافر أدنا أقرس. أحسن الله إليكم. تمام إن شاء الله ونختم به إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق.
يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا من أنزل القرآن وعلمه الإنسان يا ربنا علمنا القرآن وأشهدنا بك اغفر لنا به ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا والمسلمين أجمعين اللهم اجعل حسن تلاوة القرآن على ألسنتنا واجعل حفظه وفهمه وتدبره في أفئدتنا واجعل العمل به على جوارحنا واجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعلنا ممن يرعاه حق رعايتي ويتلوه حق تلاوتي اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا يوم القيامة اللهم ببركة القرآن وببركة ما تلونا من كتابك يا رب العالمين ارزقنا تلاوته خاصة في شهر رمضان اللهم يسر لنا تلاوته والقيام به يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين كل مريض منا ومريضة اشفهم شفاء لا يغادر سقما يسر لنا تلاوة القرآن وحفظه ويسر لإخواننا وأخواتنا حفظ كتابك والعمل به يا رب العالمين اللهم ارفع عنا وعن باقي المسلمين هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك يا الله خاصة لأهلنا في الصومال اللهم أنزل عليهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين اللهم أنزل عليهم غيثا ورحمة من عندك يا رب العالمين اللهم أزل عنهم العداوة والشحناء والبغضاء اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين وكل إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها جميعا برحمتك وصلى الله على نبينا محمد وعلى جزاكم الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكرا أكرمكم الله أعزكم الله جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هل كان وحين نقول ماضي كلن كأني مع شيخنا الفاضل شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي تحت عنوان مع المهرة مركز دمان شيخنا الأخرى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مهرة نحب المهرة يكون معهم إن شاء الله أكرمكم الله بارك الله فيكم جزاك حبك الله الذي أحببتنا لأجله جزاكم الله خيرا أيها الأحبة في الله meel kastoo aad nagala socoteen-ba waxay ahayd qaafila ama rixla mumtica oo aad iyo aad u macaan sheekha waxaan uga mahad celinaynaa isagoo waqti dambe u tahay haddanana sidaa nashiid kale uu maaragtay noola hadlay uu noogu duceeyey uu maaragtay qiraa'adka noogu raaxeeyey kamaa nashkuru fadiilati sheekh xasan alwaajidi dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan majmuucatu alkhatamaat safiinatu alqur'aan مركز الهداية دمان شنطة سديد قناة كلا دوان خير تي في دمانتين إيو دمان dadka muslimiinta ee laga yaabo in ay xalqadan dib ka daawadaan ba ilaahay ramadaan nabad ha nagu gaarsiiyo shacbaan allah noo barakeeyo ilaahay wuxuu jecel yahay raallina nooga yahay allah na waafajiyo dhammaanteen ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhiradeenna ha ka dhigo mid ka wanaagsan adduunyadeenna
diinteenna iyo adduunyadeenna iyo aakhiradeenaba Allah subxaanahu wa tacaala ha noo xifdiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in ujeeddadii uu noo abuuray uu noo maaragtay nagu dhowowdo nana waafajiyo. hada wallahu aclam wa salli allahuma ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.